وبركاته كل سنة وهذا مركز يوتيوب channel كيجا ليبان كله مقعيجو والليبان وعن هالكن مركز كسو قد بنيا 10 كمية 10 ووحي سها بدن اللغة الإنجليزية كواسو عن دوانتن هالكن كباهيني هذا 10 كأنو ربنا هدر إن أنو سو قد بنو وحا مقعيسا أما بعيوان كيسا ليرادا the 8 parts of speech معنى هذا نوع سديدي قيبود هذا الكقابل سنة سديدان قيبود كهر انت آنن وجود قلين شرحات دودا وحرواينا المعلومات كوبن أو فضت إذن كسيو وح أي سديدان قيبود إنجليزية كيهين كورتا لا استعماله سدا أي وشقيان أيو أهميته أيو ليهين قفك رواينا وبرتو لغة إنجليزية هذا سديدان قيبود waxa ay dheelan door aad u muhiim ah marka loo fiiriyo isku xirka kalmad kale lagu xiro amaba weydiinta ama sameynta su'aalo oo kale marka aad rabto inaad wax weydiiso sidoo kalena ama aad bixiso tilmaamo amaba aad dalab sameyso ama aad adiguba amar bixiso amaba aad u baahan tahay inaad naftaada dadka ku wargeliso waxa aad tahay waxa ay shaqadaadu tahay halka aad ku nooshahay iyo waxa aad damacsatahay inaad soo gudbiso qaybtan oo magaceeduba aan hadda idinku sheegay in af Soomaaliga ay ku noqonayso 8 qaybood ee hadalka afka Ingiriisigana lagu yiraahdo the 8 parts of speech ayaa waxa ay iyadu noqonaysaa guud ahaan marka la isku daro ilaa 8 qaybood oo kala gedisan qayb walba oo 8 qayb kamid ahina waxa ay usii kala baxaysaa ilaa dhowr qaybood qaarkood waxa ay noqon karaan ilaa ay gaaraan 8 kale kuwana waxa laga yaabaa inay 7 yihiin 6 ama 5 hadba sidii marka ay u shaqeeyaan marka hore waxa aan rabaa in aan halkan idinku sheego magacyada ay ka kooban tahay qaybtan maanta aan rabno in aan wax ka barano oo ah 8 qaybood ee hadalka marka la yiraahdo the 8 parts of speech sida qaybada hadalka waxa ay u kala bixi karaan sida hadda aad halkan adiguba ka arki karayso waxa qaybta koobaad la yiraahdaa ama loo yaqaan pronouns oo magaceedu yahay ama macnaheedu yahay magacyaalada dabcan waxay noqon karaan kuwa ilaa dhowr nooc oo kala gedsan oo kala baxa laakiin hadda taas shaqadeena maanta maaha waan ku tagi doonaa mar dhow hadii Allah awood leh waraali ka noqdo hadaba maadaama qaybta koowaad ee 8 qaybood ee hadalka ee aan maanta ka sheekeynayna ay noqotay pronouns magacyaal qaybta labaadna waxa ay noqonaysaa waxa la yiraahdo nouns oo ah magacyada tan saddexaadna waxa ay noqonaysaa waxa la yiraahdo verbs oo ah ficilada ama ficilka tan afraad ee ku xigsanaysa waxa ay noqonaysaa waxa la dhaho adjectives oo ah sifooyinka waxa wax sifeeya tan shanaadna waxa ay noqonaysaa waxa loo yaqaan adverbs oo ah iyagu fal kabayaal kuwa fal kabayaal ah waxa ku xigsanaya waxa la yiraahdo prepositions oo iyagu ah meelayaal prepositionadu waxa ay door muhiim ah ka ciyaaraan isku xirka kelmadaha iyo jumladaha hadba marka aad rabto inaad sameyso jumlad aad u qurux badan prepositionka isna waxa ku xigsanaya ama meelayaashaas waxa ku xigsanaya numberka 7 oo isagu ah waxa loo yaqaan conjunction isku xirka conjunctionku isna waxa uu muhiim u yahay isku xirida marka aad eray kale ku xirayso ama aad jumlad kale ku xirayso midka ugu dambeeya ee number 8 galaya ee isagu kamid ah qabiilkan amaba qoladan aanu ka sheekeynayna ee la yiraahdo 8 qaybada hadalka waxa dabcan afka Ingiriisiga lagu yiraahdaa interjections waana wax af Soomaaliga macnihiisu ku noqon karo waxyaabaha la yaab kale marka laga hadlayo oo kale oo ay farxad degdeg ah kugu soo boodo naxdin sidoo kale amaba guul aadan marka ku xisaabtamaynin ay ku timaado shucuurta marka uu qofku bixinayo amaba jirkiisu uu la falgalayo ayaa badana loo isticmaalaa ereygan la yiraahdo interjections haddaba intaasi waxay ahaayeen qaybaha kala gedisan ee 8 qaybood ee hadalka ah
ee aan halkan idinkaga sheegayay ka hor inta aanan tafaasiishooda gelin waxaan rabaa mar labaad iyaga oo magacyadoodii ah bal inaan mar kale halkan ka taxo sideedda qaybood oo hadalka afka ingiriisigana lagu yiraahdo the 8 parts of speech waxa ay u kala baxaan number 2 waa pronouns oo ah magacyaalada number 2 waa waxa la yiraahdo nouns oo ah magacyada number 3 waa verbs oo ah waxa la dhaho ficilada number 4 waa adjectives oo ah waxa la dhaho sifayaasha number 5 waa adverbs oo ah iyagu falkabayaasha number 6 waa prepositions oo ah meelayaasha number 7 waa conjunctions xiriiriyaasha numberka 8aadna waa interjections intaasi waxa ahaayeen guud mar ku aadan 8 qaybood ee hadalka iyo qaabka ay u kala baxaan hadda waxaanu bilaabaynaa in 8 qaybood ee hadda aanu sheegnay marba aanu qayb soo qaadano inaga oo qaybtaas ilaa inta nooc ay u kala bixi kartaa hadba mar tusaale ku sameynayna soo bandhigayna idina tusayna sida ay u falgalaan u shaqeeyaan ama loo adeegsado intii haddaba aanu ku jirno 8 qaybood ma noqon doonto inaanu degdeg halkan kaga baxno waayo kuwan aan ku dhex jirnaa waa waxa ugu muhiimsan luqadda ingiriisiga haddii mar aad si fiican u fahanto qaabka ay u shaqeeyaan wax badan ay ka caawin karaan inaad hore u socoto oo aad markaa noqoto qof samayn kara jumlado si madax bannaan waxaanu samayn doonaa in aanu marba mid ka hadalno sidoo kalena sheegno sharaxno waxa ay qabanayaan goorta la isticmaalo iyo ahmiyadda ay leeyihiin sidaas daraadeed waxaan ku bilaabaynaa qaybta hore taasoo ah midda kaliya ee aan xiisadan iyo xiisadaha kale ee ku xiga ilaa aan iyada ka soo xirayno ama aan ka dhamaynayno aanu ku jiri doono qaybtan iyada kaligeed waxa af ingiriisiga lagu yiraahdaa waa qaybta koobaad oo kamid ah qaybaha 8 qaybood oo ka sheekeynayna waxa iyada la yiraahdaa pronouns magacyaalo haddaba pronounku waa maxay marka hore pronounku waa erey amaba waa koox erey ah kuwaas oo la isticmaalo si aan badana loo soo celcelinin magac mar la isticmaalay magaca sida aad ogtihiinba waxa la ogol yahay isticmaalkiisu inuu noqdo mar kaliya si marka labaad ee aad hadlaysaa waxaad u baahan tahay inaad keento magacyaal u dhigmi kara magaca hadalka hore ama jumlada tagtay lagu isticmaalay haddaba iyagu intee qayb ayay u kala baxaan bal aan ogaano pronounsku lafsad ahaantiisu waxa uu kala baxaa isna ilaa ugu yaraan 7 qaybood qaybta koobaad waxaa la yiraahdaa personal pronouns oo ah magacyaalada iyagu dadka matala amaba dadka ka sheekeeya magacyaaladaasi waxa kamid ah I oo macnaheedu yahay aniga you oo ah adiga ama idinka i daawanaya we oo macnaheedu yahay annaga they oo macnaheedu yahay iyaga he oo macnaheedu yahay isaga she oo iyana ay macnaheedu tahay iyada numberka labaad waxa uu noqonayaa waxa loo yaqaano impersonal pronoun oo ah magacyaalka khayr caaqilka ah ee aan isagu matalin dadka laakiin matala xayawaanaadka iyo waxyaabaha aan caqliga lahayn magacyaalkaasi isagu kaliya waxa uu noqdaa waa hal shay halka shayna waxa la yiraahdaa it waxa loo isticmaali karaa xayawaanka sidoo kalena waxa loo isticmaali karaa waxa jamaadka sida gawaarida gidaarada guryaha shaqooyinka wadooyinka iyo wixii la halmaala qaybta saddexaad ee magacyaalada waxa ay noqonaysaa waxa la yiraahdo objective pronouns haddaba objective pronouns muxuu yahay objective pronouns waa magacyaal lagu talagalay in la isticmaalo marka aad wax dalbanayso amaba sidoo kale aad doonayso inaad adigu amar bixisaa isaga macnihiisu waxa uu noqonayaa magacyaalkii mafcuulka ahaa amaba wax lagu dalbanayay ama objective pronouns sida la doono inta kadib waxa ku xigsanaya magacyaalka kale ee la yiraahdo isna possessive pronouns possessive pronouns waxa uu ka hadli doonaa waxa la yiraahdo lahaanshaha mulkiyadda haddii aad adigu leedahay ama aad u xaqiijinayso inuu qof kale leeyahay amaba aan anagu leenahay amaba ay iyagu leeyihiin marka laga soo tago possessive pronouns waxa jira wax kale oo muhiim ah oo la yiraahdo iyagana demonstrative pronouns oo ah magacyaalada iyagu wax tilmaama magacyaladan waxa ay bixiyaan tilmaanta dhow ee kaliga ah midda dhow ee jamca ah iyo midda fog ee kaliga ah amaba tan fog ee jamca ah
marka iyagana laga soo tago waxa kale jiro wax kale oo la yiraahdo magacyada kale oo loo yaqaano relative pronouns. Relative pronouns yana waa kuwa muhiim ah waxa ay door weyn ka ciyaaraan sameynta su'aalaha marka aad doonayso inaad su'aal samayso ama aad rabto inaad dabagasho fal meel ka dhacay sidoo kalena aad ogaato falkaasi waxa sababay halka uu ka dhacay cidda ka dambeysay iyo waqtiga uu dhacay oo kale sidaa daraadeed iyagana waxa la yiraahdaa relative pronouns waa magacyada su'aalaha sameeya. waxa iyana ku xiga wax kale oo loo yaqaano reflexive pronouns. Reflexive pronouns kan badanaa dadku ma isticmaalaan laakiin kaliya shaqadiisu waxay ku tabaysaa marka la joogo meelaha la isku eedeeyo sida police stationka iyo maxkamadaha oo kale oo marka markhaati la isu doonanayo ama cid kale rabto inay dulmiso oo xuquuqdeeda doodsiiso iyada oo markhaatiyaalo been ah u keensanaysa ama rabto inay kiiska afkiisa meel kale u wareejiso. haddaba intaasi waa pronouns iyo qaybihiisa kala gedsanaa aniga oo mar kale ku celinaya pronouns waxa uu kala baxaa number 1 personal pronouns magacyada dadka matala, impersonal pronouns kuwa xayawaanaadka matala, object pronouns kuwa wax lagu dalbado laguna amar bixiyo, possessive pronouns iyo kuwa iyagu hantida qofku leeyahay ama xoolaha qofku leeyahay sheega xaqiijiya, iyo demonstrative pronouns oo iyana ah kuwa wax tilmaama, relative pronouns oo ah kuwa su'aalaha sameeya, iyo reflexive pronouns oo ah kuwa markhaatiyadu ama markhaatiyaasha ka shaqaysiiya. intaasi waa qaybihii kala gedsanaa ee pronouns aan ku celiyo ka hor inta aanan tusaale ka bixin si degan si aad kaaga dhaadhacaan. pronoun waa maxay? pronounku waa maxay? magacyaalku waa erey ama koox erey ah kuwaasoo la isticmaalo si aan magaca loogu soo celcelin. okay, intee qaybood ayay u kala baxaan magacyada? waxay u kala baxaan number 1 personal pronouns magacyada ka hadla dadka ee matala ee wakiilka ka ah. number 2 impersonal pronoun magacyaalka ka hadla wax aan dadka ahayn xayawaanaadka iyo wax aan caqliga lahayn. number 3 object pronouns oo ah iyagu kuwa wax lagu dalbado amarkana lagu bixiyo. number 4 possessive pronouns oo ah magacyada ka hadla mulkiyada lahaanshaha hanti qof uu leeyahay, aniga leeyahay, adiga aad leedahay, iyadoo ay leedahay ama anagoo dhan aan leenahay. number 5 waa demonstrative pronouns oo ah magacyada iyagu wax tilmaama, waxay tilmaamaan nasiyaan tilmaamooyinka sida jihooyinka iyo goobaha locationada iyo halka aan rabno inaan gaarno. numberka 6na isna waxa la yiraahdaa relative pronouns oo ah magacyada su'aalaha sameeya. waxa u dambeeya waxa la yiraahdo numberka 7 oo isagu ah reflexive pronouns. magacyaalkan kaliya waa xaqiijin, goobjoogid iyo wax aan anigu arkay ama adiga aragtay ama aan markhaatigeeda furi karo. haddaba waxaanu soo qaadanaynaa marka tusaalaha hal pronoun oo ah mid ka mid ah qaybaha aan soo sheegnay kaasoo dabcan ah personal pronouns. personal pronounsku mathalan waxa uu ka kooban yahay waa I aniga, you adiga, we annaga, they iyaga, he isaga, iyo she oo iyada ah. tusaale, I am Liban aniga waxaan ahay Liban. you are Aisha adiga waxaad tahay Aisha. we are people annagu waxaan nahay dad. they are students iyagu waa arday. he is a teacher isagu waa macallin. she is a housewife iyaduna waa guri joogto. intaasi ayaan ku joojinaynaa barashada casharkeennii maanta kaasoo ahmiyadiisu ahayd inaanu ogaano qaybaha kala gedsan ee 8 qaybada hadalka, gaar ahaana marka ay timaado pronounka ama magacyaalka iyo inta uu kala baxo faqad kaliya waxaanu ka hadalnay waa personal pronouns oo ah magacyada dadka matala waxa ay yihiin iyo sida loo isticmaalo. casharka xiga ka hor
inta aanan hawada ku kala tegin tani intaan dib dambe mar kale u kulmi doono waxa laga codsanaya fadlan haddii aad halkan ku cusub tahay in aadan iloobin inaad YouTube-ka subscribe saarto muuqaalkana like saarto haddii ay ku suuro gali karto aad sii share garayso sidoo kalena haddii aad rabto inaad ra'yi nala wadaagto aad qaybta comments-ka loogu talagalay fariintaada ku soo reebato aad baad u mahadsan tahay fi amaan illah